وحانو مانا يا حاشي بالحن يحوى هاي كيس قبلها يسكوها يستعمل حانو مانا يا كيس حاشي بالحن وحاسود دعوودي لابد قبلها لك الدنيا محمد فارح هوية حرسي فارح maxay wataan documentiyada wataan waxay wataan warqad siin dhulay wataan oo barabala dukunsanya leeyahay waxay soo baxday waxay ka soo baxday wasaaradda maaliyadda 29 bishii 7963 waxa la siiyay ana xawahay barabalahaas waxa la siiyay warqada siinta signora Mario Tosti ayaa la siiyay talyaani iyo ahaan talyaani ah dhulkaas oo ku yaala wadada qaramada midoobay degmada Abdul Aziz qaabkiisuna yahay Trebezio waa 3-4 gees oo isla ekayno kala dheer Trebeziyada la yiraahdo kuna fadhiya 1255 mitir ayuu ku fadhiya dhulkaas waa gabdhaha dokumenti ay wataan ila socda warqadaas waxa lagu sii cadeeyay xeer siin dhul maxaa la yiraahdaa xeer siin dhul waxaa la yiraahdaa dhulka markaad iibso qof uu lahaa qofka kale u iibsanayo dawladda hoose waxay u taqaanaa ama hay'adda bixisa markaas dhulka waxay u taqaanaa cid hore u taqaanaa waxaad rabtaa marka in adigu magac la soo wareegto oo hadhow macnaa wixii hadeed bixinaysid waxa ay koronto hadeed bixinaysid biyo hadeed bixinaysid adiga in macnaa waxa ay lagu aqoonsan ayaa rabtaa decreto ama warqad siin dhul ah xeer siin dhul yaa marka dawladda hoose ku soo saaraysa markaas ay ku siinaysa warqadan xeer siin dhul oo waxa ay la bixiyay 25 bishii 6 1986 waxa bixiyay waxa ahaayay oo saxiixay waxa ahaayay duqi magaalada waqtigaas Xasan Abshir oo nool waa joogaa waayahay maxay sheegaysaa marka warqadaas waxay leedahay Faaduma Naasir Ahmed ayaa dhul lagu macnaha ayaa la siiyay degmada Abdul Aziz ku yaala qaabkiisuna yahay Trebezio kuna dhisan kuna fadhiya 1295 mitir dhulkaas oo asalkiisu uu lahaa Mario Tosti soona maray heshiisadan soo socota dekreetada marka waxa lagu sheegaa intii heshiiso soo maray marka Faadumo ilaa 83 oo ayada laga soo gaaray intii heshiis dhulkan oo soo maray iyo macnaha yaa la tilmaamaya heshiis kala gadasho oo soo baxay waxa ahay 20 bishii 10aad 1968 waxa uu wareejisay Notayo Abdullah Haji Farah Notayo kala yaqaanay oo ahay Mario Tosti ayaa iska gaday wuxuuna ka iibiyay 3 nin oo ka iibiyay ninkii lahaa asalka ayaa 68 iska gaday wuxuu ka gaday 3 nin oo la kala yiraahdo Maxamed Al-Arale Abdul Qadir Maxamed Dheere iyo Sido Umar Usman ayuu dhulkaas ka gaday wuxuuna ku fadhiyaa 1295 mitir ku fadhiyaa heshiiska labaad oo kala gadashada aata lambar kida waxa qoray Dr. Hassan Ali Warsame nin la yaqaan waaye waxaana hadda booskiisu ku shaqeeya Nootayada aad loo yaqaan damayaalaha iyo si fiican oo ay lagu kalsoon yahay oo Dr. Muumin Axmed weyn ku taal yaa hadda booskiisu ku arshifka wala heli karaa 5 bishii 1973 يا سيد حدانين يسكجدان محمد آدم عرالة عبد القادر محمد دار يسيدو عمر عثمان ويسكجدان وحين كجدان من كل يرادو علي قاسم جعفر وذهب له ننأه ولا يقانو ركسو ولا يقال اللي يرادا الحوا هاي ونولي هاي مركن كون نولي وحوال له ودي كرا وايه غير قاسم جعفر ولا يقانا marka cali qaasim jaafar reer ka soo walo yaqaan nin dahab layaal ay jirna aad loo yaqaan dadka hor si fiican u garanaya degmada Abdul Aziz dhul ku yaala cabirkiisuna yahay 1295 mitir heshiiska saddexaad waxa qoray waxa qoray Notayo Maxamed Xasan Justi
justi nootaaya asigana si fiican loo yaqaano waayo hadda waxaa booskiisa ku shaqeeya deersho si fiican loo yaqaano asigana oo nootooyinka loogu kalsooni badan yaha ah oo archiviala waayo oo hadda ayada nafteeda archividaas waa la heli karaa waxaa la wareejiyey aatadaas ama kala gadashadaas 26 bishii 3 1978 taasoo cali qaasim jacfar oo isaga gaday kuna wareejiyey faadumo naasir axmed dhulka cabdicasiis ku yaala cabdilkiisuna yahay 1293 waa haweeneyda lagu soo saaray dikreetada on ka bilaabna warkeeda oo 83 dikreetada lagu soo saaray faadumo qaasim ayaa macnaha waxa gadatay faadumo naasir ando ayaa gadatay faadumo naasir waa iska baxan magaala waa ka baxan xamar waqti hore ka baxan wiilasheedii ayada marxuumadda way dhimatay wiilasheedii ayaa waxay ka gateen maxuu ahaaye 2014 yay waxay ka gateen gabdhahan waxaa wareejisay nootaayada maxuu ahaaye doctor maxamed cabdulqaadir sheekh xasan amiin xasan cabdi loo yaqaano ayaa waxay wareejisay 25 bishii 9aad 2014 nootaayada loogu kalsoonida badan yahay xamar oo nootaayad ugu horeyso oo ay ku jirtaa waayo dhulkan marka intaasoo marxalad soo maray waxaa ilaahay mahadiisa waxaa waaye dhulalka aad iyo aad muxuu ahay yar oo dukumenti nadiif oo sidaas wata ayuu macnaha waxa ahay waayo dhulalka aad u yar waay nootooyinkii waa la yaqaanaa ciddi wareejisa waa la yaqaanaa ciddi gadatana waa la yaqaanaa ninka laga gadana hadda waa nool yahay sacuudiga uu joogaa waa nin carab oo reer camuudi ah waxaa la yiraahdaa maxuu ahay cabdirasaaq xaaji cali saalax nin la yaqaano oo dawladda usoo shaqeeyo sargaal ahaa jiray muxuu ahay wasaarad kamida agaasimo ka soo noqday oo la yaqaano wahay oo haddana sacuudiga jidda miya mase riyaad midoo degan ma aqaano meeshaas degan waaba nool yahay walilahi alxamdu marka nootooyinka wareejiya waa nool yihiin arshifkooda waa la tegi karaa xasan muxuu ahay duqa magaalada xasan abshir oo dikreeto ku soo saaray waa nool yahay waa la weydii karaa dikreetadii waayo waxaan rabaa in dikreetadaas idin tuso intaa oo wuxuu ahaaye ay ku qoran tahay inaad idin tusaan rabaa dikreetadii duqa magaalada xasan abshir yaan rabaa inaad idin tuso waa tanaha dikreetadii waa taasaha boggeeda koobaad afartii kala gadashay sheegay waa mario tosti waa ninkii lahaa mario tosti qoligii kala wareegay ay caddaynaysaa aatadi loogala wareegay kulli marka waa tanaha aatadi aatooyinkay tixaysaa afartii aatoon hadda idin akrinaayay ama kala gadasho saxiixi xasan abshir iyo lacag qabashadii iyo kulli iyo macnaha khasnadii iyo kulligaa ku yaala waa kaasaa saxiix xasan abshir waay oo dikreetadaas ku siiyey dawladda hoose marka waa dhulka aadka u yar oo nadiifka ah oo aan laisku macnaha waxu ahay waayo intaa markaan ka imaado waxaan rabaa ninkaan odagaa muxuu wataa xaashi bulxan muxuu soo ag dhigtay macnaha waa documentigaas dacwada xaashi bulxan maxamed wuxuu wataa warqad naada dhul warqad naada dhul ayuu wataa lagu faafiyey faafinta rasmiga ee dawladda waxaa la faafiyey 30 bishii 4 1984 taasoo loogu naadiyey xaashi bulxan maxamed dhul ku yaala degmada cabdicasiis kuna fadhiya u fiirsayaa 540.5 mitir 500 waa wax ka yar kii hore muxuu ahaa 1295 mitir oo ah dhulkaas le macnaha waa gabdho ay wataan kana muxuu yahay waa 540 bar mitir waay wuxuu wataa naada dhul documenti ma noqotaa aan raba inaan ka jawaabo documenti ma noqotaa naada dhul waxa laguma yeesho documenti ma aha waxaa la sameeyaa
damayaalaha system ka duwan ayaa macnaha waxa ay loo siiyaa qofka oo ilaa 7 step maraya municipal waa ka gedisan yahay qofku dhul soo arkanaya markaas uu dhulkaana rabaa arjiyo soo qona dhulkaana rabaa in waxa ay dawladdu isiiso dhulkaas ayaa waxa la naadinayaa faafinta rasmiga lagu qorayaa oo la leeyahay dhulkaas cid leh ama wax ku sheeganaysa muddo oo 3 cisho ah hatta maadu macnaha oo ahay oo xoohay cid wax ka qabto dhulkaas ninkaas la siiyo naadaas markay dhamaato oo qofkii la waayay ka bacdi yaa processka soconaha warqada siismada dhulka bacdi la siina marka warka waxa oo wataaho waa horta waa naadadii koobaad oo dhul siin ma aha waa koow cabirka u wato waa tan idin sheegay waa 540 iyo bar mitir waay hal soo eego marka dhulka uu degan yahay iyo waa wax ka yar macnaha waxa ay 20 lagu dhuftay 30 wax ka yar waay marka bal hal soo eego dhulka uu sheeganayo uu degan yahay oo hadda dhex degan yahay iyo inta mitir uu sheeganayo hal soo eego saddex naqshada sida degmada Cabdilcaziz lama bixin 84 dhulkeeda waa degmo qadiimi waxaan rabaa inaan caddeyn idin tuso si aan u qanacdaan naqshada waa naqshadii dhulka waaye dhul dhisan naqshadii dhulka waa taasa oo dhulka macna gurigan guri dhisan u ah dhul banaan ma ahayn markay gabdhahan dhisanayeen waxaan rabaa markaan idin tuso inaan macnaha idin caddeeyaan rabaa goortii la baxshay macnaha degmada Cabdilcaziz waqtigii la baxshay rabaa inaan idin tuso guriga waxaa la baxshay waa guriga la isku hayso halka aan calaamadeeyo waa halkaas aan calaamadeeyo waaye waxaa la baxshay waxaa macnaha la soo codsaday file numberka waaye oo codsiga ayaa lagu qoraa macnaha waaye damayaalaha 60 koodi u fiirso marka ama 60 koodi konton 9 60 labadii guriga ku aadan aan fiiri konton 9 waaye kan waa konton 9 kan waa 61 kan waa 60 kan waa 60 61 61 konton 9 61 61 61 konton 9 63 u dambaysa xaashib bulxano wuxuu sheeganayaa uu leeyahay 84 baaba laysiiyay degmada Cabdilcaziz lama bixin 84 lama bixin 60 iyo wixii ka horeeyaa la baxshay iyo 63 iyo wixii ka horeeyaa la baxshay waay saas darteed waxaa jira arrin jawaab u baahan oo ninkan muddo dheer u deganaay iyo macnaha wahay soo noqotay deegaan lagu yeesho dhul iyo document lagu yeesho 30 sano iyo ka badan ayaa dad waxay degan yihiin guriyo la yaqaano ay degan yihiin qofku waa deeg kara guri islaameed xoog uga qaada kara waa iska dhisa kara asoo baylaha oo macnaha wahay oo gacanta ku dhigi kara ma noqonayso marka daliil ninkaan intaas soo deganaay daliil ma noqonayso waa dhistay daliil ma noqonayso hadii daliil noqonayso inta dhisatay xamar oo guriga ku haysata oo guriga islaamad haysata aanu deeyna marka waa dhistaan waa la degan yihiin arrintaas aqli ma aha waxaan marka rajaynayaa in aqliga loo xukun tago waxaan rabaa kaliya marka intaas waa intii xaqaa'iqda aan idin cadeeyo waxaan rabaa marka inaan ku soo khatimo dhulkan xalkiisu haddii xal rabo waa sahlan yahay buuqu markuu ka dhacay annaga laba maraa waxaa noogula yeeray xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan filaynay in faylkii anuu faylkii hore usoo qaato labadan fayl hore usoo qaato maadaama buuqu ka yimid waxaan filayaa marka aniga in inta la ii yeero la yidhahdo maxaad wax ku xukuntay oo kayska ninkaan laga hadli doono lagama hadlina guddiga iyo macnaha howlo kalaa la galay marka haddana weli arrintii waxuu ahaayey arrimo guud ayaa la galay
arrintii marka haddaba waa laga dabategi karaa waana nala weydii karaa dukumentigan iyo soo ku yimiday iyo cidda leh si fudud ayadoon macnaha waxa ahaayey media la tegin ayadoon macnaha waxa ahaayey waa wari la dhihin ayadoon leesku kicin waxa ahaayey bulshooyin isjacal macnaha nacayb aan laga dhex dhalin yaa la dhihi karaa macnaha waxa ahaayey haddana gurigii waxaa gacanta ku haya ciidana gacanta ku haya cid looga qaado cid kale ku fariisata ma jirto waa arrin taagan oo xalkeedu taagan yahay una taalla dowladda si fudud inay ku dhamayso waana wax aada u sahlan oon macnaha waxa ahaayey sida laga dhigaayo iyo qaabka loo dhigaayo dadka siyaasadeynaya dadka beeleynaya intaasoo dhan waa khaldan yihiin waxaan leeyahay uma baahna soomaaliya khilaaf kale uma baahna fitno kale uma baahna dhib kale uma baahna waxay u baahan tahay in leesu keeno si fududna waxa loo xaliyo annaga marka intaas ayaan xaqiiqadaas ayaan ka ognahay una cadaynaynaa bulshada soomaaliyeed waya gudoomiye aad u mahadsan tahay dabcan aad waxaa ugu dheeraatay falanqaynta kiisaska labada ah waayahay kiiskan ugu dambeeyay ee xaashi dabcan sida hadda ka hadashay dabcan maalmahan ugu dambeeyay aad baa xiisadiisa u taagneed waxaad noo sheegtay in ciidan ay hadda meeshii gacanta ku hayaan ciidankaasi ma ciidan dhinac ka mid a dhinacyadiiya uu ka socdaa mase hay-adaha ammaanka u diray si ay dhibaato uga imaadeen ma hay-adaha ammaanka u diray waa la isku dhacay dad baa ku dhaawacmay ciidamaa isku hertiyey kabacdina saan dhibaato uga imaanin waxau ahaayey labadii ciidanba waa laga dhaafay ciidan kale loo dhiibay dowladdaana uga u dhiibtay waya